بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد daawadayaal markale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii nutritionka iyo dietka maanta waxaan jeclahay in aan ka hadlo 5 shay oo kuu fududeynaya culayska zaa'idka ah ee jirkaaga saaran in aad iska lumisid sidoo kalena 5taas shay waxay kuu fududeynayaan inaad ku noolaatid nolol caafimaad qabta hadduu alla idmo kow shayga koowaad waxa waaye waxaan kaa rabaa subax walba markaad soo kacdid inaad cuntid proteinka la yiraahdo the good proteinka fiican proteino fara badan baa jira oo cuntooyinka kala duwan laga helo laakiin proteinka waa proteinka fiican waxaana laga helaa qaasatan ukunta organiga ah sidoo kale waxaa laga helaa geedaha plantska sida mataqaanaa cuntooyinka legumeska la yiraahdo qamadiga ah dhulka ka soo baxa sidoo kale digirta ayaa laga helaa sidoo kale sarreenka ayaa laga helaa cuntooyinka qolofta leh ee bahalleeda Soomaalida ay tiraahdo sida xumuska oo kale ayaa laga helaa sidoo kale waxaad ku quraacan kartaa rootiga wheat 100% wheatka ah ee qamadiga laga sameeyo waa ku quraacan kartaa sidoo kale mataqaanaa cuntooyinka geedaha ka yimaada proteinka fiican leh waad ku quraacan kartaa guud ahaan oo kale salmon fishka uu fiican yahay oo ku qadayn kartaa hadduu alla idmo xoogga waxaa saartaa proteinka fiican labo waxaa sidoo kale xoogga saartaa qudaarta vegetables inaad badsatid qudaarta haddii aan wax yar ka magacaawno waxaa ugu fiican geedka la yiraahdo keelka geedka la yiraahdo spinachka mushroomska aad ay u fiican yihiin sidoo kale broccoliga iyo cauliflowerka iyo aad u fiican yihiin proteinna way leeyihiin plantna way ka yimaadeen subaxii oo kale markaad cuntid isbedel weyn ayaa iskaga dareemaysaa sidoo kale waxay leeyihiin fiber macnihiisa waxa waaye waqti badan ayay awood waxay u leeyihiin inay gaajada ka ilaaliyaan marka cuntooyinka noocaas oo kale waa lagu dadaalaa haddii aad weight loss aad rabtidna aad iyo aad bay kugu fududeynayaan haddii aad rabtid healthy lifestyle-na sidoo kale aad iyo aad ayay kugu fududeynayaan qodobka saddexaad ama shayga saddexaad aan rabo inaad xoogga saartaan waxa waaye inaad biyo badan aad cabtaan 5 ilaa 10 koob maalintii biyo ah inaad cabtid ayaan kaa rabaa sababta waxaa waaye waxaa lagu tilmaamaa jirkaaga 70% inuu ka kooban yahay biyo sidoo kale maskaxdaada waxaa lagu tilmaamaa 80% in ay ka kooban tahay biyo marka biyaha wuxuu ugu talagalay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba in ay si fiican ugu noolaadaan marka biyo badan cab si aad mataqaanaa aad weight loss garaysid healthy lifestyle aad ugu noolaatid shayga afraad waxa waaye waxa loo baahan yahay shaygan dadka badanaa si fiican uma xusuustaan waxaa loo baahan yahay hurdo fiican habeenkii inaad heshid 6 saac ilaa 8 saac dadkeena aad ayay arrinkaas ugu yar tahay haddii aad rabtid inaad weight loss garaysid ama nolol fiican oo caafimaad qabta aad rabtid inaad ku noolaatid waxaa muhiim ah hurdo fiican inaad heshid 6 saac ilaa 8 saac inta u dhexeysa sababtan waxaa waaye hurdo fiican markaad heshid stresska jirkaaga ku jira iyo daalkii faraha badnaa maalinta aad kusoo jirtay horta waad ka nasanaysaa number 1 number 2 faatka jirkaaga ku jira unhealthy faatka wuxuu awood u leeyahay habeenkii markaad hurudid 6 saac 8 saac waqtiga ugu badan uu faatka unhealthyga uu gubto waay marka janiskaas inaad misgaraysid looma baahna habeenkii hurdo fiican oo kugu filan inaad heshid loo baahan yahay qodobka shanaad ama shayga shanaad aan rabo inaad sameysid waxa waaye haddii aad rabtid inaad weight loss garaysid waa inaad noqotid qof active ah waxaan kaa rabaa inaad lugta aabaysid aad lugaysid waxaan kaa rabaa guri markaad joogtid tv-ga aad hor fadhinaysid aad daawanaysid maanta inaad yareysid waxaan kaa rabaa haddii aad cuntadaada u baahnaato jikada inaad gashid cuntadii aad samaysatid haddii aad aragtid guriga oo isdhex yaala inaad ka shaqaysid waxaan kaa rabaa qof active inaad noqotid habeenkii oo kale markaad seexanaysid xoogaa jimicsi ah samee subaxalaasidii markaad soo kacaysid jimicsi samee waxaan ogahay 5tan shay haddii aad si fiican u joogtaysid weight loss aad u baahanto inaad samaysid wax badan ayaa kaa dhacaya sidoo kale healthy lifestyle nolol caafimaad qabta iyo sidoo kale waa ku noolaanaysaa marka insha allahu tacaala 5tan shay ha lagu dadaalo hana la joogteeyo si aad u heshid faa'iidada ku jirta waxaan idinkaga tegayaa sidaas. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.